ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa markii labaad sheegay in dadkiisu ay u baahan yihiin meel ay kaga xidhmaan badda cas si ay u helaan dekad ay wax kala soo degaan waxna ka dhoofsadaan maadaama ay tirahaan sii kordhayaan hadalka Abiy oo ay ka muuqatay hanjabaad iyo hilow durugsan waxa uu si gaar ah u soo qaatay dalalka dariska la ah ee Eritrea iyo Somaliland oo si degdeg ah arrintan uga jawaabtay waxa ay sheegtay inaanay waxba kala socon heshiis ay biyaha badda cas kula qaybsato Itoobiya Somaliland dhankeeda weli jawaab rasmi ah kama ay bixin arrintan warbixintan waxaynu ku eegaynaa sababta Itoobiya ugu taamaysay Saylac jawaabta ay arrintan ka bixin karto Somaliland iyo waxa ka jira sheegashada Abiy Ahmed ee ahayd inay Saylac mar ka mid ahayd dhulka Itoobiya aynu ku horeynay maxay tahay sababta Itoobiya ay waqtigan u raadinayso inay wax ku yeelato biyaha badda cas si ay u hesho dekad dawladda Itoobiya ayaa bishii Agoosto loo ogolaaday inay ku biirto isbahaysiga cusub ee ururka BRICS oo ay horkacayaan dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Hindiya kadib shir ka dhacay dalka Koonfur Afrika oo ay isugu yimaadeen dalalka xubnaha ka ah ururkan wadamada BRICS waxa ay matalaan in ka badan 40% dadka adduunka iyo 26% dhaqaalaha adduunka Itoobiya oo loo ogolaaday in ay ka mid noqoto ayaa ah dalka labaad ee ugu tirada badan qaaradda Afrika balse dhaqaalaheedu waxa uu ku jiraa kaalinta 9-aad ee dunida kasoo kowdama soo jireenka ah ee Itoobiya ay ku baadi doonayso inay wax ku yeelato biyaha badda cas waxa arrintan soo nooleeyay Itoobiya oo doonaysa inay sii xoojiso ka mid ahaanshiyaha kooxdan si taasi u suurta gashana waa inay heshaa dekad ay kula tartami karto dawladda Itoobiya oo sameynaysa horumar dhaqaale ayaa taariikhda markii ugu horeysay sanadkii 2019 hawada sare u dirtay dayax gacmeed ka caawin doona xogaha la xiriira beeraha macdanta ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada sidaasi darteed Itoobiya ma doonayso in la ogaado waxyaabaha ay soo dhoofsanayso waana mid kale oo ka mid ah sababaha ay dekad gaar ah ugu taamayso xukuumadda Somaliland weli si rasmi ah uguma ay jawaabin damaca qaawan ee Itoobiya ay ku carrabaabtay Saylac iyo siyaasadda kaga aadan marka laga tago qoraal kooban oo bartiisa egas uu ku soo qoray wasiirka difaaca Somaliland oo u muuqday mid u jawaabayay xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada oo soo dhaweeyay maalgashi ay Itoobiya ku samayso dekadda Saylac wasiirka ayaa sheegay in Saylac ay ka mid tahay dhulka Somaliland xukuumadduna ay ka mas'uul tahay waxa laga yeelayo isagoo intaasi ku daray in Itoobiyaanku haatan ay adeegsadaan dekadda Berbera Itoobiya waxa ay 19% ku leedahay dekadda Berbera sida uu dhigayo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee la saxeexay 2016 kaasi oo u dhaxeeyay shirkadda Imaaraadka laga leeyahay ee DP World Somaliland iyo Itoobiya marka laga shidaal qaato heshiiskaasi hore Somaliland waxa ay gali kartaa heshiis kasta oo Itoobiya kula wadaagto dekadaha dhisan ee ku yaala biyaheeda maadaama oo Itoobiya tahay dawlad weyn oo leh suuq dhaqaale isla markaasina ay xiriir saaxiibtinimo la leedahay Somaliland 30 sano ee la soo dhaafay laakiin in Itoobiya ay dekadiyada u gaar ah ka hesho biyaha Somaliland ma aha mid suurtagal ah mustaqbalka dhow haddii ay Somaliland gaashaanka u daruurto damaca gaarka ah ee Itoobiya ay ku doonayso Saylac maxaa laga filan karaa Itoobiya iyo hanjabaadii qayaxnayd ee Abiy Ahmed Itoobiya haatan kuma dhiiran karto inay qaado dagaal damaciisu yahay inay hesho Saylac kaasi oo ay si toos ah ugu lug yeeshaan militariga Itoobiya hase yeeshee waxay abuuri kartaa qalalaase siyaasadeed oo gudaha Somaliland ka dhaca si ay uga faa'iideysato arrintaasi waxayna rabshadahaasi ka abuuri kartaa gobolka Awdal oo ay ku taalla dekadda Saylac iyadoo adeegsanaysa farsamooyin siyaasi ah ma runbaa in Saylac ay ka mid ahayd dhulka Itoobiya sida uu qaba Abiy Ahmed arrintani maaha mid la xidhiidha oo kaliya aragtida ra'iisul wasaare Abiy hase yeeshee waa aragti ay aaminsan tahay dawladda Itoobiya oo salka ku haysa inaanay muqaddas ahayn xuduudihii gumaystuhu u sameeyay Afrika gaar ahaan Itoobiya iyo Somaliland maadaama oo ka hor gumaystaha dhulku isu furnaa iyadoo Itoobiya ay ka talin jireen boqortooyin guun ah oo mararka qaarkood maamulkooda uu gaari jiray Saylac iyo deegaano kale oo ka tirsan Somaliland maadaama oo markaasi dhulka Soomaalida aanay ka jirin nidaamyo la mid ah kuwii markaasi ka jiray Itoobiya sidoo kale Itoobiya waxay ahayd dadka kaliya ee aan arag gumaystaha taas beddelkeedna waxayba isugu yeedhaa madowga kaliya ee wax gumaystay maadaama oo san cadduhu uu siiyay hawd and reserve area taas oo sii xoojinaysa qabka ay carre adag ku damci karto